السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Good morning تيانشي good morning millionaires دمان تيانس family مكسو جتا وادي السلامية وقبل الهاجر عثمان سنكوس. الحمد لله ثم الحمد لله آد بنو فرح سنة هاي إن اسم قلينو آد بنو فرح سنة هاي إن العشر كان خلق هذا مكسو جوكتان محن اللي هاي عفمات تام إذا رجينا إن شاء الله تعالى عفمات قبطان وظيف في عنتين ساكي توبركان قرب إن شاء الله إن إذن كسو جرسيو وحلو مع فلو أب دبقل أيلو مع فلو أب أيلو مع حقيقة waxaa jirta tiir ganacsigan uu ku taagan yahay oo laga marmaan ah qofku uu qabanayo mar walba tiirkaas ganacsiga qofka maalinta koowaad uu ganacsigan ku soo biiro oo maartay ganacsigan go'aankeeda qaato waxa laga rabaa number 1 inuu sameeyo wax loo yaqaan prospecting waa filasho ama shukaamin ama soo barasho marka micnaheedu maxaa ula jeednaa filasho maxaa ula jeednaa shukaamin maxaa ula jeednaa qofka markuu saakay ka soo tagay xaafadda uu joogay dadkii yaqaan markuu ka soo dhax tagay uu imaaday xafiis shirkadda Tianis ay leedahay uu soo dhax fariistay kadibna loo saariyay fariin caafimaad iyo fariin dhaqaale shaqo abuur loo saariyay qofka dadkii saakay uu ka soo tagay waxaan ognahay qofkii saakay ka soo tagay ma aha qof kale oo soo noqday micnaha maxaa ula jeedaa waxa ula jeedaa saakay waxa ka soo tagay haajir oo ah ninkii macallin iskuulka ahaa ninkii meheradlaha tukaanlaha ahaa ninkii darawalka ahaa taksiilaha ahaa ninkii kawaanka hilibka gaday nin noocaas saaki ka soo tagay laakiin saaki hadda qofka u soo noqday waa qof ka duwan qofkii hore waa micnaha waxa uu jeedaa waa qof fariin caafimaad iyo fariin dhaqaale u wada bulshada sida awgeed marka wuxuu u baahan yahay inuu bulshada soo barto u baahan yahay waa inuu prospecting sameeyaa number 1 number 2 qofku waa inuu sameeyaa name list dadkii uu soo bartay nambaradooda soo helay uu diyaarsaday waa inuu buugi qalin qaataa kadibna qoraal ku sameeyaa waa dadkii inuu qoraal ku sameeyo name listiga waa inuu qoraa waa inuu dadkii diyaarsadaa 20 ruux 30 ruux 40 ruux 50 ruux 60 ruux hadba intuu ka gaari karo ilaa 150 ruux ka sii badan qofku waa inuu qortaa uu markaa ay diiwaan gashtaa waa number 2 qodobka saddexaad wuxuu yahay dadkii uu diyaariyay waa inuu xawaay invitation ku sameeyaa waa inuu casuumaad ku sameeyaa waa inuu u sheegaa walaal macaan soo dhawow waxaan ku hayaa fursad caafimaad iyo mid shaqo abuuran ku hayaa dhaqaale soo dhawow walaal macaan goorma sheekaysan karnaa goorma jaanis leedahay soo dhawow qofka ku dheh taas waxa loo yaqaan casuumaad waa invitation casuumaad way mid xigta waxay tahay qofka soo casuumtay waana ku sameyn kartaa war presentation waana warbixin siisa qofku waana warbixin la siiyaa macluumaadkii qofka loogu soo yeeray loo soo yeeray ee loogu wacay waa in qofka asaga loo sharaxa tusaale waa in la dhaha fariinta caafimaadka ku hayay ama fursadda caafimaadka noocan bay u dhacaysaa fursadda shaqo abuurkana noocan bay tahay qofku waa in loo sharaxa taa waxa loo yaqaanaa in loo sharaxa qofka ومعلوم شركة تاريخ ذا برودكت ذا ماركت بلان كذا قفك إن الله شرحها هبكوس كجد بنقول لها وبرزنتيشن وربحين قلب كوحي قالوا حوي هاي قفك إن الله صمم مركز فلو أب دبقل قفك وربحين تلسي إسكب حي وعلو فلو أب دبقل الله صمم مركز ما أنتم حنبرن دونا مهمة جناح سجنا أولي هاي طب فلو أب أولي هاي جناح سجنا دبقلكم مهمة أولي هاي جناح سجنا يطلع كدونا إن شاء الله هذا مركز waxaan ku leenahay meet him or her after 24 to 48 hours qofka la kulan nin inaag wuxuu noqdo la kulan 24 saacadood ilaa 48 saacadood gudahooda qofka la kulan 24 saacadood waa hal maalin saacada qofka warbixin siisay ilaa saacada laga gaarayo waa hal maalin waa 24 saac gudahooda 48 saac gudahoodana waa laba maalmood oo kaliya laakiin sida sharciga wuxuu yahay 24 saacadood gudahooda inaad qofkan la kulanto sababtu maxay tahay marka sababtu waxay tahay people are excited about the business by this time waqtiga hadda aan ku jirno oo hal maalin gudaheeda ah oo ka soo wareegtay qof markay warbixinta la siiyay qofka uu xamaasadaysan yahay excited waa qofku waa dareenkiisu kacsan yahay shucuurtiisa lama qiyaasi karo qofka dareen wax buu dareemaya maadaama waxaan loo sheegay wuxuu is leeyahay waxaan ma runba ma beenba maxaa ka jira wax buu raadinaya qofka maskaxiisa way shaqaynaysaa way wareegaysaa qofka wuxuu u baahan yahay in macluumaad fara badan la siiyo maadaama qofka ganacsiga waqtigan lagu jiro qofka ganacsiga uu la yaaban yahay uu xamaasadaysan yahay qofku waa in la soo celiyaa hal maalin ama laba maalin gudahooda qofku waa in la soo celiyaa set this meeting u daji meetingkan ama shirkan daji immediately after presentation isla markii aad qofka warbixinta siisa daji يعني متى كان دجي قرشي waxaa ku dhahaysaa walaal macaan soo dhawow maxaa su'aal oo qabtaa markii qofka su'aasha uu maartay su'aal ma qabi ku dhaho waxa leedahay hal maalin waxba lagu ma fahmo walaal macaan soo dhawow
maskaxda bini'aadankana maahan memory maahan waxa wixii loo sheegay way sii hilmaami kartaa casharkan cashar baa xiga goorma ii soo laabanaysaa birito meeqa socod ii imaan kartaa already si program qofka si ballami si ballami give material and document to be replaced qofku xasinaysa haday suurtagal tahay material si qofka book si ama documenti da haysato book da haysato oo caadi ah warbixintii macluumaad shirkadda ku qoran tahay waa siin kartaa hadii aad flash hayso qofka dhigata flashkan inta qaadato casharanta ku jiro laba cashar ku jirto soo dhageyso muuqaalka soo daawo qofku ana siisaa macluumaad sababta maxay tahay 95% dadku wax loo sheegay way ka sii dhumaan way ka sii dhumaan sida awgeed marka qofku xasinaysa book ama wax si qofku wax information ka meel uu ka raacan karo oo dib ka akhrisan karo si qofka meet him or her answer his or her questions with your leader qofka la kulan ugana jawaab su'aalihiisa qofka ugu jawaab qofku waa inaad la kulantaa su'aalaha uu qabana waa inaad ugu jawaabtaa qofka with your leader adigoo la kaashanayo hogaamiyahaaga ableenkaaga haddaa tahay qof cusub ee weli aan ganacsiga xog fiican ka haynin haddaa tahay oo dadna aad soo casuumayso qof markaad follow up ku samaynayso ableenkaaga u keen qofka hadday online tahayna ableenkaaga qofka online ku soo geli follow up through is the tool to get the answer yes or no haddaba dabagalku waa shayga kaliya ama qaabka kaliya oo aan ku heli karno jawaabta ah qofka inuu dhahay yes ha waan kula shaqeynayaa or ama no may kulama shaqeynay qofka inuu ku dhaho waan kula shaqeynayaa ama inuu ku dhaho qofka kulama shaqeynay waxay ku xiran tahay dabagalkaaga aniga maanta xafiiska Tianis hadaan tago warbixin la siiyo oo aan dib lii soo wicin maba soo laabanayo aniga waa iska baxaba waa iska tagaya because ma garanayo faa'iido ay leedahay ganacsiga Tianis uu ma garanayo sida awgeed marka qofka inuu ku dhaho aan kula shaqeynaya ama kulama shaqeynay waxay ku xiran tahay adiga inaad dabagal qof ku sameeyay ku xiran tahay if you don't make follow up hadaan dabagal sameynin you will lose waxaad khasaarin doontaa waxaad dhumin doontaa your energy your time kaaga haddii aad dabagal sameynin qofka inta warbixintiisa aad farax ka qaado you will lose your time waqtigaad khasaarinaysaa waqtigaagii dahabiga ahaa qofka aad ku soo baratay aad ku soo casuumtay timekii iyo waqtigii ka baxay you will lose waad khasaarinaysaa sidoo kale waxaad khasaarin doontaa your energy awoodaadii in tamartaadii wixii energy aad ku hadlaysay oo qof warbixinta ku siisay energy qof aad ku dhumisay dhanna waad khasaarinaysaa sidoo kale waxaad khasaarin doontaa people ama person qofkii ama dadkii aad warbixinta siisayna waad khasaarisay because qofkan kaliya wuxuu u baahnaa in dabagal lagu sameeyo su'aalihiisa looga jawaabo laga jahil bixiyo waxyaalaha qofka ka dhex guuxaya unbuu u baahnaa qofkii kaliya u baahnaa in wax caqabad uu u malaynayo loo sharaxa xog fiican la siiyo macluumaadkii laga dhaadhicay u baahnaa haddaadan soo celinin qofkiina waad khasaarisay ka dhigan tahay sidoo kale industry shirkadiina waad khasaarisay sababtoo ah ganacsigaaga ma ahan dhismaha xafiiska ganacsigaaga ma ahan daawada Tianis ganacsigaaga ma ahan adiga ganacsigaaga waa dadkaaga waa teamkaaga waa haddaadan team meesha ku lahayn you have no business ganacsi ma lihid hadda sidoo awgeed marka ganacsigiina waad khasaarisay shirkadii Tianis waad khasaarisay halkaas ka baxday marka khasaare dhamaanteed waxay ku soo urursanaysaa inaad dabagal sameyn wayso ayaad shirkadaada ku khasaarisay dadkiina ku dhumisay energy-gaaga ku dhumisay time-kaaga ku dhumisay sida awgeed marka waxaan u baahanahay mar walba inaan sameeyno ku dadaalno follow up ama dabagal aan ku dadaalno u baahanahay objection xaqiiqatan markii qofka warbixin qof la siiyo oo dabagal lagu sameeyo waxa dhacaysa maraha qaar diidma dhacaysa excuse ma marsiina dhacaysa rejection diidma dhacaysa caqabadaha ka imaanaya meesha ayaga su'aalooyin caqabada